bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd oo aanu maanta mikrofoonka la dhex marnay ayaa si weyn u soo dhaweeyay isla markaasna bogaadiyay safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo wafdi ballaadhan ee uu hogaaminayo ee ay ku tageen wadanka isku tagga Imaaraadka Carabta iyagoo magaalada Dubai kaga qayb galay shirweynaha dawladaha adduunka ee sanadka 2025 bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Balligubadle ayaa sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadnaqeen dhagax dhigga jidka isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Balligubadle oo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhawaan dhagax dhigay shirkan caalamiga ee dulalka caalamiga ka soo qayb galeen madaxweynayaasha iyo wasiirada caalamka oo dhan madaxweynaheenu ka qayb galay waxay tilmaamaysaa inaynu maanta helay aqoonsi caalamiya ayay tilmaamaysaa labadii safar ee uu iskaga daba noqday madaxweynuhu Dubai waxa weeye laba safar oo u soo jiiday oo taariikhi ah oo u horseeday qaranka Soomaaliland horumar ballaadhan maalgashi ballaadhan ganacsi ballaadhan iyo aqoonsi caalamiya ayay tahay waxa labadaas safar dhexdooda jiray safarkii koowaad ee uu Soomaaliland gudaheeda ugu baxay gobolka Hawd isaguna wuxuu ahaa safar taariikhi ah oo aan hore loo arag waxa weeye safarka taariikhiga ah waxa uu dhagax dhigay ama uu bilaabay wadada isku xidha Balligubadle Hargeysa madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo ay ku fashilmeen baan oran karaa xukuumadihii hore ee qaranka soo hogaaminayay waayo waxay tilmaamaysaa imaatinkiisa iyo dhagax dhigiisa iyo xukuumaddiisa oo isku duuban imaatinkaasi boqolka cishe ugu horreeyay inuu yahay first kii ugu horreeyay ee lagu yimaado gobolka Hawd shacabka gobolka Hawdna waxaan qabaa maanta inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin runtii wuxuu ahaa safarka waa soo dhaweynayaa safar taariikhi uu ahaa safar maqaamkiisa laba uu ahaa safar aan hore loo arag buu ahaa waxaan ku hambalyeynaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland safarka taariikhiga ah ee uu galay iyo horumarkii ballaadhnaa ee uu ka keenay iyo sidoo inoogu iibgeeyay qadiyadeena Soomaaliland ee ah aqoonsi doonka runtii waan soo dhaweynayaa mar walba waxaan leeyahay madaxweyne maxaa tolo waan ku garab taaganahay horumarka dalka iyo waxqabadka dalka iyo maxaa tolay waxqabadka dalkaba runtii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikh shalay tole wuxuu ka qayb galay shirkii maxaa tolay dawlado kala duwan isku yimaadeen runtii wuxuu ahaa shir lagaga wada hadlayay maxaa tolay dawladaha Afrika oo dhan runtiina wuxuu ka keenay natiijo fiican oo loo huloobi karay Soomaaliland maanta ay taartay lugtii aqoonsiga wala soo dhaweynaya mar walba waan ku hambalyeynay madaxweynaha dawladda Imaaraadka iyo isku tagga Imaaraadka waxaan leenahay wad mahadsantihiin mid kale aan ku darayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland safarkiisii ugu horreeyay wuxuu ka soo galay maxaa tolay gobolka Hawd isagoo dhagax dhex ku sameeyay wadadii inta badan iyo muddadii 4 sanadood ay reer Balligubadle iyo gobolka Hawd bay raadinayeen una dhagax dhigay una ballan qaaday inuu dhameystirayo runtii waa mid aad u muhiim ah xagga kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka iyo dhammaan maxaa tolay baahiyihii gobolkaba oo maxaa tolay inuu keenay runtiina waan ugu mahad celinaynaa haddaan nahay dhalinyarta gobolka Hawd waxaan leenahay madaxweyne waan ku garab taaganahay horta marka ugu horeysa waxaan maanta doonayaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro dhagax dhigay wadada Balligubadle iyo Hargeysa isku xidha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waqtigii ololaha waxyaabihii aan ku taageernay campaign-ka ugu galnay aan ugu ololeynay waxa ka mid ahaa ballanqaadkii uu noo ballanqaaday wadada Balligubadle Hargeysa isku xidha markii dambana uu ka rumeeyay waxa sharaf noo ah inuu madaxweynuhu safarkiisii koowaad ku yimid magaalada Balligubadle arrintaas aad iyo aad ay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahad celinayna waxaan aad iyo aad aan ku hambalyeynayaa oo ku bogaadinaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland safarkii uu ku tagay wadanka Imaaraadka Carabta marka madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro aad iyo aad baan arrintaa uga hambalyeynaya oo safar martiqaad qaas ah oo safar heer caalami ah aad iyo aad baan ugu bogaadinaa uguna hambalyeynaa uguna soo dhaweynaa oo guul weyn oo Soomaaliland oo dhan u soo hoyatay waan kugu mahad celinaa waan kugu garab taaganay madaxweyne
kuwa iyo qaar ka waaweynna waa kaa filanaa waa wixii lagu doortay lagu idmaday waddada Balligubadle iyadana haddaan ka hadlo uu dhowaan dhagax dhigay bilowgeedii iyo dhagax dhiggeediiba la israaciyey aad iyo aad iyo aad ayaanu madaxweyne kuugu hambalyeynanaa karee Balligubadle ahaana waxaanu ku leenahay alfa mara shukran kun jeer baad mahadsan tahay intaa iyo inka badanna madaxweyne oo kaa filanaa waxaan ka mid ahay dhalinyarta ku nool gobolka Hawd degmadiisa Balligubadle aad iyo aad baan u soo dhaweynaa safarka madaxweynuhu ku tagay Imaaraadka Carabta waa safar taariikhi ah waa safar guushiisa wata waa safar keeni kara aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u soo dhaweynaa sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadnaqaynaa dhagax dhigay wadada Balligubadle Hargeysa waa wado in badan la sugayay oo waxyaabo badan ka tari doonto gobolka sida ganacsiga horumar badan la u soo jiidi karta waanu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baad ugu mahadsantahay wallayna madax dawladayada iyo madaxweynaha waa salaamaynaa shirka shalayto uu ka qayb galay Imaaraadka waanu ku bogaabinaynaa khudbaduhu jeediyeyna aad bay noo deeqeen waxaan leenahay madaxweyne اعترافنا وان ku kalsoonay inaad soo heliso waxa kale oo noo raaca wadadii aad ku ballan qaadayna waad rumaysay inay noo dhamaatana waanu ku rajaweynay waanu kaaga mahad celinaynaa waxaan leeyahay ilaahay cimrigana ha ku dheereeyo arrimahana ha ku dhib yareeyo ha kula qabto halkan waxaan ka bogaadinayaa safarka madaxweynaha uu ku tagay Imaaraadka Carabta aad baan u soo dhaweynaynaa hadaan nahay gobolka Hawd waa sharaf bay noo tahay sumcad bay u soo kordhinaysaa bulshada Soomaaliland aad baan u bogaadinayaa mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaadba hambalyo baan ku leeyahay mudane madaxweyne sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa dhamaystirka wadada gobolka Hawd oo maxay ahayd noo dhagax dhigay madaxweynaha Cabdiraxmaan Ciro aad baan u soo dhaweynayaa insha Allah bidmillaahi kariim waxaan rajeynayaa in Ilaahay kugu guuleeyo kula garab galo wadada dhagax dhigtay dhamaystirkeeda in Ilaahay kugu guuleeyo ayaan rajeynayaa mudane madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaadba aad baan hadaan nahay bulshada gobolka Hawd aad baan kugu mahadnaqaynaa waxaan aad iyo aad u hambalyeeynaa safarka madaxweynuhu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta safarkaas oo ahaa safar diblomaasiyadeed kaasoo ka muuqatay in maanta ay Soomaaliland aan u baahnayn iyo halkay doonayeen inay gaadhay oo Soomaaliland aad moodaysa inuu fursad dahabiya oo ka faa'iideystay madaxweynuhu oo muddo yar oo 5 daqiiqo ah ku kaga sheekeeyay taariikhda Soomaaliland halkay ku taalo mihniyada ay u leedahay caalamka iyo maalgelinta ay samaystay shirkadda DP World marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa safarka aad iyo aad baan madaxweynaha kugu hambalyeynaa dadweynaha dadweynaha gobolka Hawd waxaan leenahay hambalyo waxaan kaloo madaxweynaha uga mahad celinaynaa safarkii uu ku yimid degmada Balligubadle oo ku dhagax dhigay wadada Balligubadle halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaan ku bogaadinayaa safarkii uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta uga gol lahaa inuu raadiyo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale aan uga mahadnaqayaa safarkii uu gobolka Hawd ku yimid kaas uu dhagax dhigay wadada gobolka Hawd waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantay madaxweyne waxaan ku bogaadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku bogaadinaynaa safarku ku tagay magaalada Dubai oo ku cadeeyay mowqifkii Soomaaliland oo dhex dhigay inta soo dawladood ayaan ku hambalyeynaa talabaad waxaan ku hambalyeynaa safarku ku yimid iyo dhagax dhig u dhigay gobolka Hawd madaxweynaha waa taxniyadeynaa waxaanu leenahay siro joog alxamdulillah awlan ilaahay waa mahadle ilaahay waa mahadnaqanaa maanta kooda ilaahay iska leh maanta labaad madaxweynaha maanta Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u hambalyeynaa waftiga uu ku tagay maanta caalamka u bandhigayna aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxaan leenahay ka sii wad ilaahayna kula garab leenahay insha Allah ta'ala Cabdinajiib Dayb Cismaan warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle